odayda ah ayaa qisadani ka sheekeeyay oo wuxuu dhahay markii aan marayay waqtiga qaangaadhka guriga ayaan ka soo daahi jiray habeenkii waqti dambe ayaan iman jiray hooyadayna waxay ii reebi jirtay qoraal fariimo ah qoraalkaas oo ii sheegayo meesha ay cuntadu taalo iyo madbaxa iyo meelaha aan waxaan u baahanahay waxaan u bartay markasta inaan soo daaho ama waqtigu dib iiga sii dhaco aniga hooyadayna waxaan ku wada xiriiri jirnay ama waxaan ku arki jiray fariimaha iyo waxyaabaha muhiimka ah inay xasuusiso sida waqtiyada iskuulka ama waqtiyada meel muhiim ah aan leeyahay inay halka igu qorto ay dhahdo hooyahay iloobin waxaas cuntadaadu halka bay taalaa dharkaaga muhiimka xaggaas ayuu yaalaa warqada ayaan iska akhrisan jiray oo ku socon jiray maalin maalmaha kamida waxa dhacay isla waqtigeygii ayaan soo daahay oo imiday warqadii halkii ayay hooyaday igu reebtay warqadii maan akhrisanay waxaan u bartay meelaha cuntada dhigtay iyo waxyaabaha ay xasuusinayso kadibna waxaan sameeyay cuntadeedii ayaan iska cunay waan iska seexday habeenkii waqti dambe ayay noqotay waagi ayaa bariyay waagi markuu bariyay aabahay ayaa urdadii kiciyay oo ilmeynaya oo ooyaya waxaan soo kacay xaafadii oo la wada qaylayo la murugaysan yahay aabahay wuxuu ii sheegay inay hooyaday dhimatay geeridii ayaan tagnay aniga hooyadayna in dhowr bilood ah ama sanad ku dhowba wajigeenu isma qaban oo ismaan arag warqada waxaanan ahayn isla geeridii ayaan tagnay murugadeyduna way ka weynayd murugada dadka kale oo dhan qalbigaygu aad ayuu u jabnaa noloshana waan dhibsaday hooyaday la'aanteed waxaan rajeynayay inay mar ii soo laabanto si aan waqti yar ula qaato ama sheekadeeda u dhageysto geeridii dhamaatay guriga ayaan ku soo laamay gurigii oo madow oo bila hooyo ah waan iska jiifsaday hurda way ii iman weysay isla waxaan xasuustay warqadii ay hooyo halkii iigu reebtay degdeg ayaan u orday warqadii ayaan meesha ka soo qaaday warqada waxa ku qornayd hooyo isma fahmayo waan xanuunsanahay markii aad timaado kici oo dhakhtarigee xaaladaydu aad ayay u liidataa haddii aan warqada akhrin lahaa ama aan dhaga u yeelan lahaa hadalka hooyaday waxaa dhici lahayd in xaalkayga aan wax ka tari lahaa ama niyadeedu ay ku qaboobi lahayd inaan dhakhtar geeyay ilaa maantana dhaawacii waa igu yaalaa maantana waxaan marayaa marxaladii ay hooyaday maraysay wiilkaygu dhag iima leh waxaan jeclahay inaan u dhawaado inuu dhageysto talooyinkaygana inaan siiyo isla sida aan hooyaday ula dhaqmayay ayuu hadda ila dhaqmaa fariinta aan hadda ni reebayna waxay tahay waalidkiina ka warhaya markuu waalidkaagu ka tago ama dhimashada waalidkaagu raxmado badan iyo arsaaq badan iyo khayraad badan oo soo degi lahaa oo sababtooda kugu iman lahaa ayaa ka go'ayo waa fariin aad u qaali ah oo ni soo gaarsiiyay anna waxaan jeclahay inaan sii tabiyay haddii aad jeclaatay fariintan sii tabi walaal adiguna sii gaarsii walaalaha kale waxaa dhici karta walaal sida wiilkaayo kale ah oo maanta waalidkiisii dhib kala haysato inuu wax ku maqlo oo waalidkiisa wuxuu taro